الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين waxaan ku soo guda jirnay xajka iyo umrada qofka xiranaya xajka iyo umrada waxyaabaha loo suneeyo waxa kamida koow in uu qubaysto labo in uu isnadiifiyo saddex qofka ragga ah waa inuu iska ilaaliyaa oo ka dheeraada dharka la tolay oo tolmada maray wuxuu qaadanayaa laba go oo cadcad midna hoos gunta ayuu ka dhiganayaa midna go iyo laba dacas ayuu qaadanayaa qodobka afaraad waxa kamida ee loo suneeyo qofka raba inuu xirto xajka iyo umrada qofka ragga ah inuu jirkiisa carfiyo carfintan waa inta uusan qofka xiran xajka iyo umrada balse hadii uu xirto xaraam ayuu barfuunka noqon doonaa sida aan arki doono insha Allah hababka iyo nusugta loo xirto xajka waa saddex midda koowaad at-tamattu waxa la yiraahdaa qofka inuu umro xirto bilaha xajka kadib umradii uu dhameysto oo ka xalaal noqdo kadib uu xaj xirto isla sanadkaas tamattu ayaa la yiraahdaa wuxuu dhahayaa qofka markii uu xiranayo labbayka umratan mutamatti'an biha ila al-hajj habka labaad wuxuu yahay al-ifraad waxa la yiraahdaa qofka inuu xaj kaliya xirto wuxuu dhahayaa markuu xiranayo labbayka hajjan habka saddexaadna wuxuu yahay al-qiraan waxa la yiraahdaa qofka in uu xirto xajka iyo umrada si wada jir oo wada xirto wuxuu dhahayaa markuu xiranayo labbayka umratan wa hajjan farqiga u dhaxeeya marka saddexdan tamattuca iyo qiraanka umra iyo xaj waay ifraadka asaga waa xaj oo kaliya tamattuca iyo qiraanka waxa waajiba hadiy xoolo qofka inuu qaado balse ifraadka hadiy waajib ma aha tamattuca waxa waajib ah laba dawaaf iyo laba saci orad oo bayna safa wal marwa ah safiya marwa inta u dhaxayso qofka inuu ordo dawaafka koowaad iyo oradka koowaad waxa iska leh umrada dawaafka labaad iyo oradkiisana waxa leh xajka ayaa leh qiraanka iyo ifraadka ayaga waxa waajib ah dawaaf sunna ah oo ah dawaaful quduum iyo dawaaf rukni ah oo loo yaqaano dawaaful ifaada waxa waajib ah hal saci hal orad oo bayna safa wal marwa safa iyo marwa inta u dhaxaysa labadaas buur qofka inuu ordo saddexdan waxa ugu fadli badan tamattuca ugu fadli badan ifraadka ayaa ku xig waxa ku sii xiga marka qiraanka talbiyada la talbiyeysanayo xukunkeeda waa sunno waxayna noqonaysaa labbayk allahumma labbayk labbayk la sharika lak labbayk innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika laka waxyaabaha qofka xaraam ka noqonayo markii xajka iyo umrada uu xirto waa sagaal koo waxa xaraam ka qofka inuu madaxa xiirto waa xaraam labo in cijiyaha uu jarto waa xaraam saddex qofka ragga in madaxiisa uu daboolo koofiyad ama cimaamad uu qaato waa xaraam balse hadii dalad uu isticmaalo qoraxda isaga celinayo wax ma dhibayso qodobka afaraad wuxuu yahay qofka ragga ah dhar toliina ama tolmo soo maray inuu qaato waa xaraam qodobka shanaad qofka jirkiisa iyo dharkiisa inuu carfiyo waa xaraam qodobka lixaad ugaarta bariga qofka inuu dilo ama uu ugaarsado yuusan badilinba waa xaraam qodobka toddobaad qofka inuu nikaax ama guur oo galo ama gabar lagu nikaaxiyo waa xaraam qodobka sideedaad qofka inuu jimaac sameeyo oo xaaskiisa u galmoodo u tago waa xaraam qodobka sagaalaad qofka in xaaskiisa uu la baashaalo intii farjiga in ka sokaysa in uu la mubaasharoodo waa xaraam haweenka ayaga ragga ay la mid yihiin ilaa laba qodob maahane qodobka koowaad oo laga soo reebay waxay tahay dhar toliina haweenka waa ay qaadan karaan balse ragga xaraam ay ka ahayd qodobka labaad oo laga soo reebay sagaalkan waxay noqonaysaa haweenka ayaga madaxooda waa ay daboolan karaan balse ragga xaraam ay ka ahayd inay madaxa dabooshaan arkaanul umrada arkaanteedu waa saddex koow al-ihraam qofka inuu xirto umrada labo ad-dawaaf inuu dawaafo kacbada saddex as-sa'yu inuu oradki la yimaado oo ahaa bayna safa wal marwa labada buurood ee safa iyo marwa inta u dhaxaysa waa inuu sa'yigi ahaa la yimaada waajibatul umrada waajibaadkeedu waa labo koow inuu qofka ka soo xirto umrada
meelihii mawaaqiiddii oo laga soo xiranayay cumrada oo ahaa almawaaqiid almakaaniya oo laga soo xirto cumrada iyo xajka. laba waajibka labaad wuxuu yahay alxalq aw altaqsiir, qofka inuu xiirto oo ama uu gaabsado timaha. arkaanulxaj, xajka arkaantiisu asaga waa 4. 1 alixraam, qofka inuu soo xirto xajka uu xirto. 2 alwuquufu bicarafa, inuu istaago carafo maalinka 9aad waa inuu carafo istaagaa. qofka carafo istaaginna xaj ma laha, waayo alxaju carafa wiil rasuulka calayhi salaatu wasalaam, xajku waa carafa. maalinka carafa qofkii ay dhaafto xajka waa uu dhaafay. qodobka 3aad ama rugniga 3aad waa dawaaful ifaada, dawaafka la yiraahdo waana dawaafka dhexe. 2 dawaaf oo sunno ah ayaa midna waa uu ka horeeyaa, midna waa uu ka dambeeyaa. dawaaful quduum oo ah markaad soo galayso Maka dawaafka aad samaynayso ka waa sunno. dawaaful wadaac, dawaafka la yiraahdo waa dawaafka ugu dambeeya markaad ka soo baxayso faaruqayso reerkaaga iyo xaafadaada aad soo aadayso ayaad la imaanaysaa. marka dawaaful ifaada asaga waa dawaaf rugni, waana dawaafka u dhaxeeya labadan dawaaf, dawaaful quduum iyo dawaaful wadaac ayaa u dhaxeeya, waa dawaafka dhexe. marka dawaaful ifaada waa rugni. rugniga 4aad wuxuu yahay uu xajka uu leeyahay as-sacyu, waa orodkii ahaa bayna safa wal marwa, qofkii inuu la yimaado. waajibaatul xaj, xajka waajibaadkiisa asaga waa 7. 1 qofka inuu ka soo xirto miiqaadkii, waa mawaaqiid almakaaniya, goobaha xajka laga soo xirto waa inuu ka xirtaa, waa waajibaatul xaj ayuu ka mid yahay. qodobka 2 inuu qofka carafo istaago ilaa qoraxdu ay ka dhacdo. waajibka 3aad waa inuu baryo ou seexdo Musdalifa. waajibka 4aad waa inuu baryo ou seexdo Mino meesha la yiraahdo. waajibka 5aadna wuxuu yahay tuurashada, dhagax tuurashada oo buuraha la tuuranayo. waajibka 6aad wuxuu yahay qofka inuu xiirto ama uu gaabsado timaha. waajibka 7aadna wuxuu yahay dawaafka la yiraahdo dawaaful wadaac, dawaafka sagootinta, dawaafkaasna inuu la yimaado. waajibaatul xaj ayuu ka